السلام عليكم daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo idiin hayo bahda TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo taageero dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeed weydiistay dawladda Ruushka xilli Qatar iyo Turkigu ay bilaabeen in ay ka fiirsadaan taageerada joogtada ah ee ay siiyaan madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo heshiis aanay waxba ka ogeyn dawladda federaalka la galay ciidamada Kenya ee ka howlgala magaalada Kismaayo maamul goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo ka cagajiidaya inay soo magacaabaan gudiyada doorashooyinka ee laga sugayo gudoomiyaha golaha guurtida Somaliland oo ka hadlay doorashadii ka qabsoontay deegaanada Somaliland ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka al-shabaab oo shaaciyay inay dib u qabsadeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe oo ay horey ula wareegeen ciidanka dawladda Soomaaliya iyo ururka Taliban ee dalka Afghanistan oo la wareegay deegaano cusub qodobadaasi iyo kuwa kale aad ku daawan doontaan wararkeena u diyaar garooba iyagoo dhameystiran isku soo noqod haboon mar kale daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan wararka bahda TV oo dhameystiran fadlan daawada si ay mar walba ku soo gaaraan wararka iyo warbixinaha xiisaha leh ee bahda TV rukumo oo subscribe saara channelkan aan ku bilaabo sidii hordhaca warkeena ardin kugu sheegay iyadoo dhawaan safar qarsoodi ah wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guleed Qatar ay ku tageen wadanka Ruushka siiba caasimadiisa Moscow ee wararka soo baxaya waxay sheegayaan in dawladda federaalka Soomaaliya ay raadinayso heshiisyo cusub oo ay la gasho dawladda Russia kuwaasi oo looga goleeyahay in ay maalgeliso ololaha musharaxnimada ee madaxweyne Farmaajo oo markii labaad doonaya inuu ku guuleysto kursiga Soomaaliya ugu sareeya ee madaxweynaha ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guleed Qatar safarka uu ku tagay Ruushka waxa ku weelinayay xubno sarsare oo ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya waxayna la kulmeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Ruushka oo uu kamid yahay wasiirka arrimaha dibadda diblomaasiyiin iyo xubno ka tirsan aqalka looga arrimiyo wadanka Ruushka waxa diiradda lagu saaray kulamadaasi oo warbaahintu ay dibad joog ka ahayd balse sida aynu ka soo xiganay qaar kamid ah xubnaha wafdigaasi sidii ay dawladda Ruushku xiriir cusub ula samaysan lahayd dawladda federaalka Soomaaliya oo ay isku xumaadeen wadamada reer galbeedka ee uu Mareykanku kamid yahay Qatar oo ugu dambeysay taageero ballaaran siinaysa madaxweyne Farmaajo ay iminka u muuqato mid ka cagajiidaysa maalgelinta ololaha dib u doorashada madaxweyne Farmaajo ee markii labaad waxay dawladda Qatar wadaa musharaxiin kale oo aan ahayn madaxweyne Farmaajo taasi oo shaki gelisay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo kooxdiisa ololaha kuna qasabtay inay raadshaan wadamo kale oo awood leh oo garab istaaga xilligan adag ee uu madaxweynuhu u baahan yahay in uu difaacdo kursigiisa Ruushku waxa uu Soomaaliya u soo bandhigay markii uu xumaaday xiriirkii kala dhaxeeyay Mareykanka iyo wadamada kale ee reer Yurub in ay heshiis gaar ah la gashay dawladda federaalka xukuumadda Moscow kaasi oo dhigaya in iskaashi dhinaca militariga ah uu dhexmara labada dal arintaasi oo aan wali la buuxin ay mas'uuliyiinta ka socda dawladda Soomaaliya ee tagay wadanka Ruushka waxay balan qaadeen hadii ay dawladda Russia gacan ka geysato soo saaritaanka madaxweyne Farmaajo in ay markaasi diyaar u tahay dawladda federaalku inay heshiis dhinaca iskaashiga militariga ah la gasho dawladda Russia lama oga sida uu Ruushku xilligan ugu dhiiran karo in uu dhaqaale iyo awood dheeri ah ku bixiyo soo saaridda musharax u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya isagoo aan horeyba looga baran in uu farageliyo siyaasadda arrimaha gudaha Soomaaliya oo uusan Ruushku wax saameyn ku lahayn tan iyo markii ay meesha ka baxday dawladda awoodda badnayd ee Soomaaliya ka jiri jirtay ee militariga ahayd ee uu hogaaminayay Allah u naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Barre waxay iminka la aaminsan yahay in madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu raadinayo saaxiibo cusub oo ku garab istaaga sidii uu mar kale kursiga ugu soo laaban lahaa madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa aqalka martida ee magaalada Kismaayo kulan kula qaatay taliyaha qaybta labaad ee howlgalka AMISOM ee deegaanada Jubbaland iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM madaxweynaha iyo saraakiisha uu taliyaha hogaaminayay ayaa kulanka kaga hadlay dagaalka ka dhanka kooxda al-shabaab iyo sidii loo dardargelin lahaa isla markaana la isaga kaashan lahaa howlgallada wadajirka ah ee ay fuliyaan ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa AMISOM ee ka howlgala deegaanada Jubbaland siiba ciidanka Kenya oo si gaar ah uga shaqeeya deegaanada dawlad goboleedka Jubbaland
intaasi kadib howlgalka amisom iyo jubbaland ayaa isku raacay in laga wada shaqeeyo sugidda amniga goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan siiba magaalooyinka Kismaayo iyo Garbaharey oo xarunta gobolka Gadaa ahna labada deegaan doorasho ee Jubbaland wuxuu si gaar ah u doonayaa Axmed Madoobe in ciidamada amisom ay xoog saaraan amniga goobaha ay doorashooyinku ka dhacayaan ee magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado oo dhawaan lagu heshiiyay in la geeyo ciidamo ka socda booliiska amisom halkaasna uu ka howlgalo maamul uu Axmed Madoobe soo magacaabay oo dadka deegaanku ay raali ka yihiin waxay isku raaceen in si wada jir ah ammaanka loo sugo isla markaana xasiloonida iyo nabadda laga wada shaqeeyo waxa kale oo la isku raacay in ciidamada Kenya ee ka howlgala gobolada Jubbooyinka iyo Gado inay kordhiyaan weerarada ka dhanka kooxda al-shabaab xilli dhawaan weerar dhinaca cirka ah oo ay qaadeen ciidamada Kenya ay ku waxyeeloobeen dad rayada balse uusan ka hadlin maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe hogaaminayo Axmed Madoobe ayaa qalinka ku duugay in ciidamada Kenya ee qaybta ka ah howlgalka amisom iyo kuwa Itoobiya ee ka howlgala deegaanada Jubbaland in ay sii wadaan dagaalka ay kula jiraan kooxda al-shabaab waxaana la aaminsan yahay in dagaalkan ka dhanka kooxda al-shabaab uu maamulka Jubbaland xilligan door bidayo in la xoojiyo maadaama uu cadaadis kala kulmayo dhinaca kooxda al-shabaab oo inta badan haysata deegaanada Jubbaland oo ay ku jirto xitaa caasimadii rasmiga ahayd ee maamulka Jubbaland oo ah magaalada Bu'aale ee xarunta gobolka Jubbada Dhexe kulanka dhex maray saraakiisha ka socday ciidanka amisom iyo hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ku soo aadaya xilli loo diyaar garoobayo doorashooyinka kuraasta golaha aqalka sare iyo aqalka hoose oo ka qabsoomaya dowlad goboleedyada iyo caasimada dalka ee Muqdisho maamul goboleedyada taageersan dowladda federaalka ee Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa ka cagijiidaya inay magacaabaan gudiyada doorashooyinka ee laga sugayo waxa dhawaan magaalada Muqdisho lagu saxiixay heshiiskii doorashada Soomaaliya oo uu garwadeen ka ahaa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxaana heshiiskaasi saxiixay xukuumadda madaxda maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir qodobka ugu horeeyay heshiiska ee loo baahnaa in sida ugu dhaqsaha badan loo fuliyo ayaa dhigayay in isbedel lagu sameeyo gudiyada doorashada si degdeg ahna loo magacaabo muddo ku siman 3 maalmood gudahood balse iminka oo hal asbuuc ka badan uu ka soo wareegay waqtigii la saxiixay heshiiskii doorashooyinka ee dhex maray madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaan wali lagu guuleysan in la wada magacaabo gudiyada doorashooyinka waxaana kaliya soo magacaabay gudiyadii laga sugayay hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani iyo gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdilaahi hase yeeshee maamulada la aaminsan yahay inay u janjeeraan dhinaca filla Soomaaliya ee Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa ka cagijiidaya inay soo dhisaan gudiyada doorashada waxaana arintaasi loo aaneynayaa in mucaaradku ay cadaadis ballaaran ku hayaan maamuladaasi oo iyagu jecel inay dib u soo celiyaan gudiyadii hore balse ay cabashada ka keeneen xubnaha mucaaradka isbahaystay ee midowga musharaxiinta maamulada taabacsan dowladda federaalka ayaan wali soo gudbin liiska gudiyada doorashooyinka ee laga sugayo waxaana ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo waqtigu ku socdo uu doonayaa in si dhaqso ah loo dhiso gudiyada saddexda maamul goboleed ee taabacsan filla Soomaaliya iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa horay u soo magacaabay gudiyo doorasho oo muran badan dhaliyay in ay ku badan yihiin saraakiil ka tirsan nabad sugidda Soomaaliya iyo shaqaale dawladeed iyo taageerayaasha madaxweyne Farmaajo waxaase gudiyadii la magacaabay dacwada ka gudbiyay mucaaradka oo dalbaday in isbedel lagu sameeyo dhammaan gudiyada ay soo dhiseen saddexdaasi maamul goboleed iyo kii uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyaga oo soo gudbiyay liiska xubnaha cabashada ay ka qabaan oo gaaraya 67 xubnood gudi gaar ah oo ra'iisul wasaaruhu u saaray inay xal ka gaaraan arintaasi ayaan wali wax natiijo ah soo gudbin isla markaasina ku guuleysan in ay xaliyaan tabashada laga qabo xubnaha ka tirsan gudiyada doorashooyinka ee mucaaradku ay ka cawdeen iyada oo ra'iisul wasaaruhu doonayo inuu sida ugu dhaqsaha badan gudiyada u magacaabo balse uu caqabad kala kulmayo saddexda maamul goboleed ee Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle iyo dhinaca mucaaradka ururka al-shabaab ayaa shaaca ka qaaday inay dib u wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe dagaalyahanada ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa lagu soo waramayaa inay mar kale dib u wareegeen deegaanadii ay dhawaan ka qabsadeen ciidamada xoogga dalka ee ku yaala gobolka Shabeellaha Dhexe qoraal ka soo baxay kooxda al-shabaab isla markaana lagu faafiyay baraha ay ku leeyihiin internetka ayaa lagu sheegay in dagaalyahanadoodu ay haatan ku sugan yihiin deegaanada Warciise Qoor Dheere Wararaxley iyo kuwa kale oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe al-shabaab ayaa sheegay in ay si nabdoon ula wareegeen deegaanadaasi oo dhawaan howlgal military ay ku qabsadeen ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee Gorgor kadib dagaal culus oo ka dhacay duleedka magaalada Jowhar ee caasimadda maamulkaasi wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidanka dawladdu ay haatan ku sugan yihiin deegaanka Biyo Cadde oo ay saldhig ku leeyihiin ciidanka AMISOM gaar ahaan kuwa Burundi sidoo kale
waxa ay wadaan ciidamada dowladda dhaqdhaqaaq ay doonayaan inay dib ugu qabsadaan deegaanada ay ka soo baxeen iyada oo dhowr jeer hore lagu eedeeyay ciidanka xoogga dalka in ay soo faaruujiyaan deegaanada ay al-shabaab ka qabsadaan taasi oo suurtagelisa in kooxda al-shabaab ay si fudud deegaanadaasi ula wareegto gudoomiyaha golaha guurtida ee Somaliland mudane Saleebaan Maxamuud Aadan ayaa guul qaran ku tilmaamay doorashadii ka qabsoontay deegaanada Somaliland ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka sidoo kale wuxuu mudanayaasha ku wargeliyay mar haddii doorasho la geliyay golayaasha deegaanka iyo sidoo kale wakiilada in iyagana la soo doorto golaha guurtida dhinaca kale wuxuu xusay in saddexda xisbi aanay isku khilaafsanayn doorashooyinkii ka dhacay Somaliland oo ay si isku mid ah uga wada qayb qaateen wuxuu uga mahad celiyay ciidamada Somaliland sida ay u sugeen amniga doorashooyinka ka qabsoomay dhammaan gobolada Somaliland musharaxiinta u tartamay kamid noqoshada golayaasha wakiilada iyo deegaanka ayuu sheegay intii guuleysatay inuu u hambalyeeyo inta uu waqtiga iyo nasiibku ka hiiliyayna ay jaanis kala heli doonaan waxa uu gudoomiye Saleebaan hadalkan ka sheegay furitaanka kala fadhiga 75aad ee golaha guurtida Somaliland oo ka qabsoomay magaalada Hargeysa ururka Taliban ayaa qabsaday degmo ku taala koonfurta wadanka Afghanistan iyaga oo aan wax iska caabin ah kala kulmin ciidanka ammaanka ee dawladda Afghanistan waana degmadii toddobaad oo ay si buuxda ula wareegaan tan iyo markii Mareykanka iyo xulufadiisa NATO ay bilaabeen ka bixitaankooda dalka Afghanistan sargaal sare oo ka tirsan laamaha amniga ee koonfurta gobolka Sabuul oo codsaday in aan magaciisa la shaacin ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalyahanada Taliban ay soo galeen degmada Shinkai kadib markii ay halka faaruujiyeen ciidanka dawladda taliyaha booliiska gobolkaasi General Maxamuud Sameemi ayaa waxa uu xaqiijiyay in Taliban ay qabsatay degmadaasi waxa kale oo afayeen u hadlay ururka Taliban uu sheegay inay sii wadi doonaan gulufkooda oo deegaano hor leh ay qabsan doonaan Mareykanka ayaa waxa uu bilaabay inuu ciidamadiisa ka daad guraysto gudaha wadanka Afghanistan waxaana qiyaastii la sheegay in ciidamada Mareykanka ee halkaasi laga daad guraynayo ay gaarayaan 2500 oo askari iyo ciidamo kale oo ka socda dalalka NATO oo iyaguna gaaraya 7000 oo askari dhamaantoodna la rajeynayay inay si buuxda u faaruujiyaan wadanka Afghanistan waxaase fursadan ka faa'iideysanaya ururka Taliban oo deegaano hor la qabsanaya waxa inta ku dhan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka aad kala socoteen Bahda TV